بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkan waa baahinta BG Media. Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto oo ahaa gudoomiyihii ururka saxafiyiinta Soldier ayaa qoyskiisa maanta waxa loogu geystay arrimo run ahaantii ay halkan kaga warrami doonaan oo argagax u geystay isaga iyo markaad eegto xubnihii markaasi qoyskiisa qaar ka mid ah hadday tahay xaaskiisa oo halkan ka warrami doonta iyo hadday tahay gabadh uu dhalay oo markaasi gaarigiisa wadatay. maxamuud cabdi jaamac ayaa hadda marka la eego dhinaca saxaafadda aan baariyahan waxyaabaha qaarkii kusoo qaadan jiray, laakiin haddii aynu dib u milicsano markii madaxweynaha hadda talada haya muddada 7 bilood ah oo mucaaradka ahaa ayaa waxa uu la kulmay suxufiyiin aad u ballaaran isagoo harma sharafeed ugu sameeyey magaalada Hargeysa. saxafiyad iyaduna muddo markaasi xidhan oo xukuumaddii hore ay ku xadgudubtay run ahaantiina halkaa ka jeedinaya dhibaatooyinka lagu hayo suxufiyiinta. haddaba maxaa maanta iska bedelay? miyaan dastuurku kii ahayn arrimaha uu tilmaamayo cabdiraxmaan isagoo mucaarida maantana madaxweynaha arrinkaasina hortiisa ka dhacayo maqashiisan yahay meelna aanu uga maqnayn caasimadda jamhuuriyadda Somaliland? arrimahan dhacayaana ay yihiin qaar ka soo gaadhay kuwii horena uu ka hadli jirayna aan waxba kaga duwanayn in suxufiyiinta lagu taxadiyo iyadoo oo markaasi xuquuqaha uu dastuurka siiyey oo halkan kusoo bandhigi doono. haddaba haddaynu nahay baahinta jamhuuriyadda Somaliland xubnaheeda ka midka ah iyo haddaynu nahay muwaadiniinta jamhuuriyadda Somaliland iyo dastuurka jamhuuriyadda Somaliland xorriyadka uu bixiyey iyo guud ahaan inta badan marka ay tallaabooyin qaadayaan ciidamada amnigu ayaa bal hadda waxaynu xusuusta dib u riixaynaa xilliguu cabdiraxmaan ahaa mucaaradka ila daawo oo dhegeysi habboon. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمانتين وحدكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا مشارفات كانوا حنو سمعين بشارة وابن كفر أحسننا هاي إن حرية دي دبوها الشيء وعقلوا الآن سلوينية بشارة هو جديد أو قدر تلمامي أنا أكون أحسننا هاي إن التلبيسيد حرق بشارة وحو مرقعد كيهي حد قدبك كتمشضة دستورك كتمشضة هي حد قدبك صحافة مدحة بالنعم هي حقوق الإنسان وهالكا كصوب حي حرق بشارة يكوى كالوكور يكوى كضمين دونبا إن الموادن آن لقرانين عدة وحيدين هاي صوب حي وقف استكبغنا ايو كوي هاي كو الاحري وصوب حي موادن عندن بالله هاينين اللحيرو دبادنا مدعي قادتوين كيس لو سميه رجي هالكين جوغا رج بدن با لحيري ومسؤولين هالكين فديدا iyadoo wax dambiye loo haynin عادل بان نقطي قفك markuu muddo xidhnaado ee lagu xadgudbo ee xuquuqdiisa lagu tunto in la ilaawo la iska soo daayay aad baan uga xunnahay ugana xumayn xariga bishaaro iyo qof kastoo muwaadin ah oo lagu xadgudbaba. waxaan rajaynaynaa in xukuumadda hadda joogta oo tii ugu tacadiga badnayd ee ugu xadhiga badnayd saxaafadda madaxa bannaan siyaasiyiinta iyo shacbigaba inay ka waantowdo xadgudubkaa joogtada ah aan lagu gafin lagu xadgudbin muwaadiniinta xuquuqda dastuurku siiyey. waxaan ku celiyo waxaan ku dhim maxaa kugu dhacay way argagaxday markay soo dul istaagtay waa maxay tiri markaa inuu gaariga ama duqadi gaari kale maray ama ayay moodaysay ama de tuug iyo waxadeen waxaan dul taagan waa maxay markaa kadib waxay aragtay inay hawshiiba
intii ka sii badan tahay iyadii baaba la qabtay oo si macna la argagixinayo oo kale gaarigani waa wanted wuxuu yaalaa meel walba in waa la raadinayay iyo ninkii wadayba marka waxay tidhi muxuu kuu yaho waa aabbahay bay ku tidhi marka way saseen runtii iyadiyo dee intii saarnaydba marka ahaan dabeetana waanu u tagnay waanu weydiin waxaan ku nidhi maxaa jira ee dhacay gaariga adeeg baa saaran caruur baa saaran maxaa looga baahan yahay gaariga caruurtana saara taksigan idin ag taagan alaabta kalena ha saarnaato waxaananu geynaynaa taraafikada bariga marka dee taraafikada bariga ma garanayno waxaan ku nidhi taraafikada bariga anagu ma garanayno mana tegi karno laakiin dee war ma haysaan wax wara oo cad oo gaarigani dee lagu qabanayo ama aad dee hawl u geysto lagu xarayn karayo maya sharcigaasi wuxuu yaalaa meesha aanu idinku wadno aanu idin geynayno markaadna raacdaan ayaan bacdi idiin sheegaynaa wixii jira marka waxaan ana gaadhay go-aan ah in aan gaarigii ka saaro wixii ku jiray caruurtii wixiina ka dejino bacdeenna aanu soo gaarigii ka hayno marka waxaan ku yidhi anagu ma tegayno saldhigga bariga waxaanu geynaynaa CID-da marka intii aan wada hadlaynay waxaa naloo keenay qoladan imika nala joogtay ka sarraysay oo xidiglayaala si ay dee ay noo wada qabtaan marka waxaan ku yidhi anagu dee wax dhiba maanaan geysan waxa ulina ma jirto dee ma garan karo waxaa hawsha ah ee culus ee dhibtaasa ee caruurta iyo annaga iyo faamilka oo dhan wada geysteen ma dareemi karno marka waxay yidhaahdeen waxaan markii dadka iskugu soo kacaya ururan waxay ahayd meeshu goobtu indhabirta horteeda ahayd meeshaan ka adeeganayna waxay suuqan gobanimo ee sare ahayd bacdeen waanu soo raacnay aduu hawl badan kadib iyo dee waxoogaa dadkiioo noo soo ururay waanu israacnay marka waxaan ku yidhi maxaynu isku ogaanaa waxaynu isku ogaanaynaa in aadna geysaan CID-da bacdeen sidii bay CID-dii nagu keeneen CID-da markaanu CID-dii galnay aanu saa u gallay ee albaabadiina laga furay ayaa sidii waxay naga boobayaan furihii oo kale ama ay u arkeen markaa furihiina waanu u dhiibnay gaarigiina way wareejisteen sidii baanu uga soo baxnay markaa CID-da sababta isleedii waa laydin eryanaya ee baabuurta loo qabqabanaya iyo ciyaalkii saaraaba maxaa aad u malaynaysaa runtii waa taanu isweydiinayna faamil ahaan ama dadku way isweydiinayaan ee ah dhibaatada weyn suxufigan maxamuud cabdi jaamac uu geystay ama uu dalka ka geystay ama dhibaatada intaa leeg isagiina loo firdhinayo annagiina loo raadinayo baabuurtii hantidii loola wareegayo ma garan karo waa waxyaalaha ugu badan aan isweydiinayna waxaas mana garan karno waayo dee waynu garan karnaa dalkeena oo waxaa laga yaabaa inaynu wada ognahay wixii jira waxaa jira dee dhibaatooyin badan oo waqtigii maxay ahayday dawladdii hore joogtay waxaynu maqli jirnay saameyn badan ama dhibaatooyin badan oo dalka ka jiray oo ay ka mid ahaayeen dee dhibaatadii buurta ka dhacday oo kale oo dil ka yimid iyo khasaare aad u fara badani waxaa jirta niman xukuumadihii xamar oo kale ka soo hadlayay ka soo caytamayay ama lafjabin weyn oo aan odhan karo saameyn bay ku lahayd dawladda Somaliland ay sameynayeen maantana dalka ka talinaya marka mushkiladda ugu weyn ee isagu ka galay ee saameynaha ka badan ee uu sameeyay dee waan dareemi laayay waan garan laayay dhacdada maanta nagu dhacday waxay ahayd aniga oo gaari ka mid ah gawaarida xaafadda ka haystay caruurta ku geeyay iskuulka isla markaana doonayay meherada iyo guriga inaan ugu soo adeego ayaa waxaan ka soo adeegay suuqa sare gobanimo marka suuqa markaan ka soo adeegtay soo baxay iyarun ka soo dhaqaaqay goobtaan ku adeeganayay baa waxa iga hor yimiday askar marka u muuqday inay gaariga information ka sii hayeen iyo halkii uu yaalay iyo intii aan adeega ku maqnaaba marka parking stag bay yiraahdeen ciidanka waxa ku jiray ciidanka traffic marka waxaan moodayay anigu in ay jiraan waxyaabo kale oo sharci oo gaariga ku saabsan markaan parkingka istaagay waxay koololba direen waxay sheegeen gaarigani inuu wanted yahay isla markaana goob kasta la ogeysiiyay in gaarigaas halku joogo iyo cidii saaranba la soo xareeyo markaan weydiiyay sababta iyo halka la tagayo waxaan ku gaariga hadda ana wata wax dhibo gaarigu muu geysan waxba intaan ogahay waxba kuma u geysan marka maxay tahay sababtan xerada traffic ee bariga u tagaya marka waxay sheegeen inay tahay waxaan anigu garanaynin isla markaana aan iyaga raaca markaaba waxa ku yiri mas'uuliyadda ma qaadi karo aan waalidka iyo xaafadda la hadlo gaariga waxa saarnaa adeeg badan oo meherada iyo xaafadda ugu soo adeegay waxa ku yiri at least ama adeegan aan dhigo xaafadina aan la hadlo maadaama mas'uuliyadda inta laga qaadi karin
way iga diideen ciidanku markii waxay go'aansadeen inay iyagu dabaraan alaabtii gaariga saarnayd oo ay taxi dalbadaan alaabtii saaraan lacagtii taxiga bixiyaan markiiba wax degdeg u dhameeyaan markaan sheegay inaan xaafadda la hadlayo intii hore way isugan laakiin markii dambe waxay yiraahdeen waxaad u muuqataa in aad sameynayso mushkilad intaa ka badan oo aad xaafadda iyo cid ogeysiinayso aniguna ma doonin inaan u taagalno marka sida ugu dhaqsaha badan la inaan raacdo weeyaan cabaan markii aan xoogaa halkii wada joognay ku yiri tusa sharciga ku yiraahdeen sharcigu wuxuu yaalaa halka aad u socoto ayna keen hooyo la hadlay hooyo igu soo socotay may sugin runtii sidii aan wax khaldan sameeyayba waxay sameeyeen anigoo arkayaba koolal dalbadeen raadiyoga ku hadleen backup bay dirsadeen way diiday inay degdeg noo soo raacdo marka backup na siiya ama ciidan kale noo soo dira way kala baxeen qolo wasaaradda iyo goobihii ugu dhawaayay ciidan ay ka helayeen bay ay tageen ciidamo xidiglayaal ay imiday ciidamadii kale la igu dhiibayay ee saraakiisha ahaa iyagna wayna soo gaareen markiiba goobta si aad moodo inay ka cararayaan in informationku ama waqtigu dheeraado waxay igu khasbeen markii dambe ciidankii aan wada joognay inaan degdeg u raaco markii aan dhaqaaqnay haddana amar kale ku soo dhacay ah in aan tagno xafiiska CID-da oo ay dhahdeen haddana halkaas buu kees ku saabsan yahay dib u soo noqday dib aan u noqonay halkii baan u tagnay adigu de arin aad u argagaxle wax aananu weligay intaanu wadanka joognay aan ku nooleyn aan ku dhalanay aananu arag taariikhda ku maqal sheeko mooye ayaa maanta nagu dhacday marka ilaa haddana ma garanayno sababta ka dambeysay in dhaqanka adag lagula kaco marka ilaa hadda ma garan karno sababta ilaa hadda gaarigu wuxuu xiran yahay marka waxay iigu handadeen marka ay kaxaynayeen in haddii aan amarka qaadan waayo anigana case aan galay laakiin iminka caseku yahay un gaariga aan u sheegay inaan hantidu xaafadda leedahay wixii aan ku qabanayo wax walba ogsaanay laakiin ma garanayo haddana waxa caseka sidaa usii adkeeyey ciidamada intaa leegna loogu dalbaday backup loo diyaarsanayay anigoo keligay gaariga waday oo joogay de waa xaalad aad u argagaxle marka dawladda iyo cid kasta khuseysada bal waxaanu weydiinaynaa de xilmay bilaamatay nolosha sidan ah xaaladaha ina looga sheekeyn jiray miyaa hadda dib loo soo celiyo la doonaya da'yarta in la tuso dhab loo tuso wixii dhici jiray iyo foolxumooyinkii waddanka soo maray haddii aan yar ku noqdo aabahay intii aan ogaa wuxuu ahaa qof aan maalina waddanka gaf ka geysan mar kasta waddaniyad jacayl ka muuqdo in badan u adeegayay qaranka mihnadiisa ugu adeegayay badanka aan maqli jiray mar kasta oo uu kiisaska saxaafadda galayo inuu odhan jiray wax cad oo muuqda oo aan la idinku qabsanayn isla markaana aan dawladda iyo waddanka dominaynin ka warama uu odhan jiray baan maqli jiray marka iyadoo xaalado badan waddanka soo mareen dad badan oo ku suntan qaran dumisnimo iyo mashaakil badan oo waddanka ka geysteen intii ugu dambeysay muddooyinkii u dambeeyey aflagaado lahaa cay lahaa gacan lahaa oo wax walba dil lahaa oo waddanka dhibaato aad u weyn u keenay oo curyaamiyey haddana in ay maanta joogaan waddanka xilal ka hayaan ka taliyaan dadkii qaranka taariikhda ku lahaa ama aan weligood gaf geysan wax cad lagu haynin dulmi geysan dembi geysanna sidaa loola dhaqmo runtii waa wax aananu ka filanaynin waddanka iyo in ay dhacayso wax noocaasi oo aad u foolxumeyd argagax lahayd marka dawladda waxaan u baahannahay bal in nalaga qanciyo oo naloo sheego dhibta jirta intaa leegaynu geysanay ee sidaa naloogu galaya waxaa jira dee dhibaatooyin badan oo waqtigii maxay ahayday dawladdii hore joogtay waxaynu maqli jirnay saameyn badan ama dhibaatooyin badan oo dalka ka jiray oo ay ka mid ahaayeen dee dhibaatadii buurta ka dhacday oo kale oo dil ka yimid iyo khasaare aad u fara badani waxaa jirta niman xukuumadihii xamar oo kale ka soo hadlayay ka soo caytamayay ama lafjabin weyn oo aan odhan karo saameyn bay ku lahayd dawladda Soomaaliland ay sameynayeen maantana dalka ka talinaya marka mushkiladda ugu weyn ee uu isagu ka galay ee saameynaha ka badan ee uu sameeyay de waan dareemi lahayn waan garan lahayn